Mobilkan Mi 11 Ultra waxa uu leeyahay astaamo fara badan oo kaga duwan yahay dhammaan mobiliskii suuqa hore u yaalay. Mid kasta waxaan ugu tagi doonaa markaan ka hadlayno qaybtiisa, laakiin imika waxaan ugu soo horeysiinaa bal display-ga mobilka. Mobilkan ayaa waxa uu leeyahay display cabirkiisu yahay 6.78 kaasoo ka samaysan display-ga noociisa yahay Super AMOLED display. Soo kale display-ga mobilkan ama fingerprint-ka mobilkan ayaa waxa uu yahay fingerprint ku samaysan display-ga. soo kale mobilkan ayaa waxa uu leeyahay 120 Hz oo ah dhinaca refresh rate-ka markay noqoto. Xagga soo kale uu leeyahay 1700 nit oo ah xagga brightness-ka mobilka markay noqoto. Isagoo noqonaya mobilka ugu brightness-ka sareeya mobiliska suuqa waqti xaadirkan yaala. Waxa ku soo dhawaa mobilkii S21 Ultra kaasi oo nitiskiisu ahaa 1500, laakiin mobilkan ayaa haddana hogaaminaya dhinaca nitiska ama brightness-ka markay noqoto mobiliska waqti xaadirkan yaala suuqa. Haddaynu u nimaadno mobilkan iyo qaabka uu soo saarayo sawirrada iyo muuqaalada dhinaca resolution-ka markay noqoto, waxa uu leeyahay cabir dhan 550 ppi. soo kale haddaynu eegno mobilkan iyo waxa uu ka samaysan yahay wuxuu badanaa ka samaysan yahay frame-kiisu aluminum. soo kale mobilkan ayaa waxa uu yahay display-giisu ama muraayadiisu mid careful amba xoodan. haddaynu u nimaadno dhinaca kamarada iyo mobilkan Mi 11 Ultra, waxa uu leeyahay kamarada ugu weyn ee uu mobil leeyahay waqti xaadirka, iyadoo mobilkan xaggiisa saraba ay qabsatay kamarada mobilka amba waxay ku fadhidaaba cabir dhan 1.1 inch. waxyaabaha kamarada mobilkani ay cajiib ku sitaa waxaa kamid ah waxaa qayb kamid ah kamarada mobilkan aad dhigan kartaa notificationska mobilkaaga amba saacada oo kale. mararka qaarkoodna waxaad u adeegsan kartaaba hab muraayad ahaan. taasi macnaheedu waxa weeye waxaad ka maarmi kartaa inaad adeegsato kamarada selfie-da mobilkan oo cabirkeedu yahay 20 megapixel. taa bedelkeeda waxaa kugu filan inaad adeegsato kamarada dambe ee mobilkan taasi oo cabirkeedu yahay 50 megapixel. taana waxa ka caawinaya waxaad u isticmaali kartaa kamarada mobilkan qaybtan aan waxaad u isticmaali kartaa si muraayad ahaan oo kala ah inaad iska aragto adigu. xagga sidii caadiga volume-kana aad u isticmaali karto inaad ku samayso inaad sawirka ku qaado. kamaradaha mobilkan oo caadiyan ah 3 kamaradood waxa markay noqoto dhinaca muuqaalada aad ku duubi kartaa kamarada dambe ee mobilkan muuqaal cabirkoodu uu dhan yahay 8K videos. xagga aad ku duubi karto markay noqoto kamarada selfie-gana muuqaal cabirkoodu yahay HD. mobilkan markay noqoto dhinaca culayska waxa uu yahay runtii mobil culus kaasoo leeyahay culayskiisu 230 gram. waxa uu amrana karnaa kamarada mobilkan oo ah mid runtii culus amba weyba taasina soo sheegnay inay haysto dhammaan xagga sare ee mobilkan. haddaynu eegno mobilkan iyo batanadiisu xagga ku yaalaan, dhinaca midig waxa ku yaala waxyaabo power button-kii iyo soo kale volume-kii. xagga dhinaca bidixna mobilkani aanu ku lahayn wax buttons. markay noqoto xagga sare waxa ku yaala waa AR blaster-kii kaasoo badanaa loo isticmaalo remote-ka qalabada isku midka ay soo saaraan shirkaduhu. waxa soo kale ku yaala waa speaker-kii. laba speaker buu leeyahay mobilkani, hal mid waxa ku yaala xagga sare, xagga kalena ku yaala xagga dambe. iyadoo shirkadu ay sheegtay markay ka hadlaysay mobilkan in mobilkan uu leeyahay speaker-ka ugu fiican ee mobilisku ay leeyihiin waqti xaadirka. waxa soo kale dhinaca midig ku yaala waa Type-C port-kii iyo sidoo kale godkii uu geliyay SIM card. mobilkan ayaa waxa ku jira amba ku samaysan chipset-ka noociisu yahay Snapdragon 888, isagoo mobilkan aqbali doona network xawaaraha sareeya ee 5G. soo kale mobilkan ayaa markay noqoto dhinaca maskaxda gudaha waxa uu ku yimaadaa inuu yahay 256GB RAM-kiisuna 8GB RAM iyo inuu yahay 256GB RAM-kiisuna yahay 12GB RAM iyo inuu yahay 512GB RAM-kiisuna uu yahay 16GB oo RAM. waxaa sidoo kale ku jira Android-ka noociisu yahay Android 11 One UI 3. haddaynu u nimaadno mobilkan iyo dhinaca bayteriga markay noqoto, mobilkan waxa uu leeyahay bayteri cabirkiisu yahay 5000 mAh isagoo wata fast charger cabirkiisu uu yahay 67 watt. waxaa soo kale mobilkan aad ku heli kartaa wireless charger-ka ugu cabirka sareeya kuwa hadda yaala suuqa, iyadoo wire charger-ka mobilkan iyo soo kale kawadas kuwa ay isku cabir yihiin. taana macnaheedu waxa weeye waxa uu kugu charge gareyn karaa ama mobilka uu 100% kaaga dhigi karaa muddo ka yar 40 daqiiqo.